Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadyaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waa conversation 18 ama wada sheekaysigii 18aad ee casharadii taxanaha inoo ahaa ee ku saabsanaa wada hadallada luqadda Ingiriisiga. Intaan gudagelin casharka waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo aad ugu xiran tihiin kanaalkeena. Waxaan idinka codsanayaa inaad kanaalkan aad tirahdaan subscribe isla markaasna aad la wadaagtaan asxaabtiina sidoo kale aad laadgareysaan sababta oo ah waxay inoo tahay like waliba ama subscribe waliba oo idinka aad na siisaan waxay inoo tahay dhiirigelin weyn waxayna dhiirigelin kale u tahay inaan sameyno muuqaalo kale oo badan isla markaasna waxaa gaaraya dad badan oo Soomaaliyeed like waliba aad na siisaan taasna waxa ay ka qayb qaadanaysaa in kanaalkan uu gaaro dad badan oo Soomaaliyeed. haddaba casharkan waxa uu ka kooban yahay sida caadadeena ahaydba wada hadalka luqadda Ingiriisiga iyo qaybta labaad oo ah erayaashii ugu muhiimsanaa. Marka waxaan ku hormaraynaa qaybta wada hadalka. Waxa wada hadlaya A iyo B. Waxa hadalka bilaabay A waxa uu yiri Hey Jack, how were your classes this semester? Waxa uu yiri sida ayuu ahaa semesterka fasaladaada semesterkan sida ay ahaayeen. Marka hadda waxaa laga hadlayaa qof dhiganaya jaamacad ama college ayaa laga hadlayaa. Marka waxa uu yiri Hey Jack, how were your classes this semester? Semesterkan sida ay ahaayeen fasaladaada sida ay ahaayeen. Classes waa fasalada, this semesterna waxa waaye sanad dugsiyeedka jaamacadda ama college-ka halfkiisa ayaa la yiraahdaa marka ama barkiisa. Marka B waxa uu yiri they were not too bad, aad uma xumeyn. Marka they were not too bad, aad uma xumeyn. I really like it, xaqiiqdii waan jeclaaday. Marka I really like it, xaqiiqdii waan jeclaaday. I really liked, waan jeclaaday xaqiiqdii my political science class, fasalka cilmiga siyaasadda waan jeclaaday ayuu yiri. Marka fasalka cilmiga siyaasadda waan jeclaaday. Marka would you consider it your favorite class? Marka wuxuu yiri eegi waxa uu yiri will you consider it your favorite class? ma u malaynaysaa inay tahay maadadaada khaaska ama fasalkaada khaaska ah ma tahay maadada marka political science. Bigi waxa uu yiri I don't know or I don't know. labadaba waa la dhihi karaa I don't know or I don't know, ma garan karo. Marka if I could call it, haddii iyada aan ugu yeeri karo. Marka if I could call it, haddii iyada aan ugu yeeri karo my favorite, maadadeeda khaaska ah haddii aan ugu yeeri karo iyada ma garan karo. But laakiin it ranks up there, laakiin meel sare boosaska way soo galaysaa. Marka ranks up waxaa dhahnay waa wixii boos wanaagsan ka soo galaya ama wixii booska ayaa booska soo galid ayaa la yiraahdaa horta eriga ranks. laakiin up markay imaato waxay noqonaysaa meel sare marka ama boos sare ayay marka ka soo galaysaa. Marka what class was your favorite then? wuxuu yiri marka keebuu ayuu ahaa fasalkaadi khaaska ahaa. Marka maadaama maadadaas boos sare uun kaliya ay ka soo galayso laakiin aysan ahayn favorite ama khaaska maadadiisa khaaska waxa uu weydiiyey booskee ama maadada ayaa booska marka buuxinaysa ama ku ah marka maadada khaaska ah. What class was your favorite then? keeba ayuu ahaa fasalkaadi khaaska ah. Marka I took waxaan qaatay a business communication, maadadan ganacsiga iyo xiriirka ayaan marka qaatay last year sanadkii la soo dhaafay. Marka and it was a terrific, waxay ahayd mid aad u wanaagsan. Marka eriga terrific waxa weeye mid aad u wanaagsan ay ahayd marka maadadan business communication ka la yiraahdo. I never took that yet, taa weli maanan qaadinin aniga. Marka ayuu yiri marka eegi wuxuu yiri I never took that yet, taa weli maanan qaadinin ama weli maanan qaadinin maadada. weli jeeda eriga yet waa weli. If that was your favorite, haddii ay taa marka ahayd maadada khaaska ah
I think ayuu marka I will check it out. waan fiirinayaa marka haddii taa ay maadadaada khaaska ahayd anigana waan fiirinayaa marka eryaashii ugu muhiimsanaa ayaa halkan noogu diyaarsan. ereyga semester ee ugu horeeya waa sanad barka jaamacadda ama qeyb ka mid ah 6 bilood ee sanadka ee jaamacadda la dhigto. not too bad ayuu yidhi marka aad uma xumo markaad leedahay la isticmaala ereyga consider waxaan dhahnay u malayn ama ku qiyaasis ama qiyaastii ama waxaad u malaynayso. ranks up waxa weeye boos sare ama meel sare kaga jiris ama ka galis. ereyga traffic waa aad u wanaagsan ama ereyga oo kale waxa uu la mid yahay ereyga very good oo kale. yet waxaan dhahnay waa weli. favorite waa khaas marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkii ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga. intaan cashar kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.